iskuduwaha cusub ee wasaaradda maaliyadda gobolka Togdheer Maxamed Jaamac Sanweyne ayaa maanta safar shaqo indha-indhayna ku tagay dhammaan laamaha wasaaraddiisa ee ka howlgala gobolkani Togdheer waxaanu iskuduwuhu warbixino kala duwan ka dhageystay dhammaan howlwadeenadii iyo shaqaalihii ka howlgalaya xafiisyadani isaga oo ka xog wareystay hanaankii habsami u socodka howlaha shaqo ee wasaaradani waxaa jira cashuuraha roobka soo kala xanuun qaada 6 bilood mar qaada marka sanadkii isaga loo jeexo maashmaashe ganacsiga kale waxaan qaadnaa isaga sanadkii oo wuxuu waajibaa sanad weyn liisha mada baabuurta oo dawladda kale wala mid sanad baro qaadayna oo iyagu sanad warshadda kale dawaarida kale markii la qabtay ugu dambeyntii waxa uu isduwaha cusub ee wasaaradda maaliyadda gobolka Togdheer Maxamed Jaamac Sanweyne uu uga warbixiyay warbaahinta ka howlgasho gobolkani Togdheer waxyaabaha uu salka ku hayay socdaalkan indha-indhaynta ee ugu kuurgalay howlaha shaqo isagoo ka hadlaya arrimahaasi waxa uu yiri sida tan laamaha cashuuraha anigoo maanta soo kormeeray laba laamood oo kala ah anagoo maanta lahayn tartiibsiga cashuuraha maanta waxaan soo kormeeray laamihii cashuuraha laanta Maxamed Cali iyo Sheekh Ibrahim hawluna aad iyo aad bay uga socdeen si fiican bay socdeen shalayna aan kormeer ugu baxay magaalada gobolka Daadmareer kormeeradan aan joogtada ah aan wado oo ku wadaya inta bisha ka hadhay anigoo baryahanba kormeerka kuurgalka si habsami socodka shaqada indha-indhaynaya si kastaba ha ahaatee markii ugu horeysay iskuduwaha cusub ee wasaaradda maaliyadda gobolka Togdheer u socdaal indha-indhayna ku tago laamaha wasaaraddiisa ee uu mas'uulka ka yahay shalay ay ahayd markii uu socdaal noocan oo kale ku maray magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareer waa barwaaqo aadan Maxamed